daawadayaal ku soo dhowaada fiidiyoo xiiso badan. Fiidiyowgan waxaan ku soo qaadan doonaa waddo ka mid ah waddooyinka ugu halista badan ee adduunka. Waddo dul marta dhul buurley ah korkiis, masaafo dhan 200 kiiloomitirna jaraysa. Gaarigan aad u jeedaan waa gaari shaambow ah, waxaana lagu rarayaa geedka loo yaqaano baambooga oo qoyan, waxaana la saari doonaa tan intuu qaado labanlaabkeed. Waa kan darawalka gaariga, wuxuuna sheegayaa waddada halista ay leedahay. Waa la dhammaystiray rarkii gaariga, islamarkaana waxaa la adkaynayaa fiilooyin lagu adkaynayaa rarka si aynan dhinac geeduhu iskugu tegin, gaariguna u cirin. Darawalka ayaa iska jeegaraynaya boolasha, islamarkaana eegaya in yar oo khalad ah, sababtoo ah wuxuu mari doonaa gaarigan buur dusheed. Khalad yar hadduu ku soo baxo ama cillad yar ay ku soo baxdana waxay sababi kartaa natiijo lagama soo kabtaan ah. Biyaha ka soconaya taayirka ayaa ah darawalku suu sheegayo biyo loogu talagalay inay qaboojiyaan bareega marka uu kululaado. Gaarigan ayaa jari doona masaafo dhan 200 kiiloomitir oo ka socoto magaalada Yuanzhou ilaa iyo Jizhou ee dalka Shiinaha. Ugu dambeyn, gaarigii ayaa dhaqaaqay, balse weli lama gaarin meeshii ugu halista badneed ee waddada. Sidaad u jeedaan, waa dhul roobab ah, waddaduna waa waddo diidi ah. Gaarigu si rasmi ah weli uma fuulin buurta dusheeda, balse hadda ayuu ku sii socdaa inuu fuulo. Waa tan buurtii. Saad u jeedaan, keliya waxaa ka bannaan shaaga gaariga intuu maro, oo hadduu gaarigu dhinac u ciiro waa halow buurta inuu ka soo faniino. Halista waddadan ayaa waxaa ku sii daraya dhagaxaanta yaryar ee buurta dusheeda kore ka soo daadanaya, kaasoo gaariga marka uu dul marayo leexleexinaya sidii laan geed ku taal, oo sababi karta si fudud inuu gaarigu u leexo kagana faniino buurta dusheeda. Marka darawalku waa inuu si tartiib ah u loodiyo. Waa buur leh waddo leh biyo dhacyo buurta qaybteeda sare, biyuhu ay ka soo daadanayaan. Waddadan ayaa ah waddo diidi ah oo gaarigu hadduu yara siliteeyo si fudud uu uga bixi karo waddada. Runtii waa waddo ay isbarbar yaallaan nolosha iyo geeridu, oo qofka u bareera uu yahay qof geesi ah kuna talagalay dhimasho. Darawalka ayaa soo daadegay, waxaa la soo gaaray meel goolad ah si uu iskaga eego waddadu halkay gooladu ka tahay. Saad u jeedaan, waa waddo silita ah, lugtiisa ayuuna ku eegayaa.
maxaad u malaynaysaa lugtii bini'aadanka ayay saa ula sibqanaysaa gaari culayskaas siduu ku mari karo yeelkeedii darawalku wuxuu yidhi malihii doorasho kale oo dib intaan u laabto kama laaban karo mana haysto sbace aan ku kala jireeyo doorashada keliya aan leeyahay waxay tahay inaan meeshaan halista aan maro waa kan gaarigii oo ku soo dhaqaaqay gooladii silitaynaysay ee halista badnayd saad u jeedaan gaarigu kuma socdo kontaroolka darawalka ee wuxuu ku socdaa miisaanka culayska saaran iyo silitayn darawalkuna waa mid aan isdhibayn oo kolba dhinaca uu u socdo u raacaya gaariga si tartiibana u kontaroolaya runtii xirfadda darawalnimada ayaa waxay tahay mid u baahan farsamo iyo waayo aragnimo gaar ah waa la soo dhaafay gooladii halista badnayd waxa uuna gaarigu hadda marayaa daadegii waddada ma looga daadegayay buurta saa u jeedaan gooladdu waxay maraysay meesha ugu halista badan waddada waa waddo ciriiri ah oo xitaa labada gaari ee isku baasaya aanay isbaasi karin ilaa ay iska gaaraan jembiyadooda ugu dambayn safarkan ayaa noqday safar lagu guulaystay halkii loo socdayna soo gaaray darawalka ayaa dareemaya farxad iyo reerayn ugu dambeynna wuxuu soo gaaray halkii uu u socday inuu rarka ku dejiyo daawaday haddaad ka heshay fideogan fadlan ku soo biir halkarka tv waxaad ka heli doontaa fiidiyoyo badan oo ku xiiso geliya